naagtan wax lagu magacaabo Anna waxaan gabadheeda u gelinaysaa dharka caruuska habartan waxay ku dhaysaa mar un lagu guursan doonaa gabadheeda yarna soo bixaysa meeshan ay fadhiisanaysaa oo ciyaaraysa habarta gabadheeda qaab daran fiirinaysa markaas waxay fiirinaysaa gacanteeda waxaan isdheeysaa habarta gabadheeda gacanteeda maxay isu duqoobaysaa oo keenaysa qof duq ama gabadh yareed waxay dhaysaa maxay sidaan dhan ugu fiirinaysaa habartan waxay dhaysaa aabay gabadheeda tiyareed waxay ugu jabaysaa maalinta hooyo waa aniga gabadhaada markaas habarta waxay dhaysaa adiga maan gabadheeda aabe markaas gabadhi ku dhaysaa hooyo si fiican fiiri waa aniga gabadhaada kadib habarta waxay ku soo boodaysaa gabadha waxay ka saaraysaa dharka isla markii gabadhii sidii hore ay ku salaabanaysaa sidoo kale ayadan gabadhu ay naxaysaa wixii kan xaysa hooyada waxay ku sameynaysaa markaas gabadheedu waxay dhaysaa guriga waxa ku jira aqraad hooyada waxay soo qaadanaysaa qorigeeda banaanka inuu soo baxaysaa kadib ay qolkooda biyaanada waxay ka maqlaayeen inay keeras biyaano qolkan uu isfurayaa kadibna hooyadii waxay galaysaa qolka waxayna arkaysaa qofna inuusan ku jirin markay gadaal si fiirsana qolkiisa automatic loo xirayaa markaas uu soo dhawaanaysaa dhanka biyaanadii ayay toosinaysaa oo ay xiraysaa haddana marka qolka isaga kaligiisa ay isfurayaa haddana isaga kaliya ay soo xirayaa Anna markaan waxa la yaabanta wax meeshaan ka socda kadibna Anna wax ka xoog badan ay galtuura dhulkayna ku dhacaysaa kadib ay isku dayaysaa in iridi fiirido iridi way isfuraysaa been soo caraysaa soo bixaysaa banaanka marka ayadii haweeneydan kale ay soo cararaan qolka biyaanada Anna ayaa markaan ka cabsanaysaa wax ka socda qolka haweeneydan Anna waxay ku dhaysaa cabsanaysaa isdaji maxaa kugu dhacay stress isku furin waxaan ku dhaysaa qaado daawo oo iska seexo anigaan ka caawinay hawsha guriga Anna haweeneyda waxay ku dhays wala yaabaysaa markaas ay arkaysaa daawada meesha loo saaray haweeneyda si bixaysa Anna ayaa ka shakinaysa markaan haweeneydan biyaano iska daadinaysa oo ay soo bixaysaa waxay soo bixaysaa banaanka guriga Anna haweeneyda iyo odaygeeda waxay ku dhaysaa guriga la ilaali waan ka sii tagayaa sidoo kale waxay ku leedahay waxaan soo raadinayaa meelahan aduu ku yaalo meel qabuuro ah odaygaan wax walba oo kiin isii xaaskiisa sababtoo meesha waxa ku yaala qabuuro waxayna dhahaan qoftan way waalantaa ayada maxaa ka qaldan odayga xaaskiisa mar walba wuxuu sheegayaa qoftan inay tahay qof aan caadi ahayn wuxuu ku dhahay wax walba wanaagsanaan doonaan ayadan waxay ku dhaysaa waqtigeena waqti fiican inuu noqdo rajaanayna waxayna tusaysaa qabuurihii markaas odayga soo cararaya wuxuu soo qaaday qashinkaani qabuuro ayuu ku shubayaa si uu ugu qariyo Anna